بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا مقعي وفرح يا لدي يحويرر وحنا هاي قبر قراية وحنا دوني إن كقيب قاتل برنامجك وهي هليجة هنكله. برنامج كان كقيب قادنا يا وحوية قيمة هوين كلية هاي موضوعنا وحنا لها haweenkeena qiimo leh haweenka Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu karaameeyay wuxuuna siiyay mansabad sareysa wuxuu siiyay martabad qof walba ka sareysa martabadaas waxa inoo sheegay quraankeeni waxana inoo sheegay nabi maxamed sallallahu alayhi wa sallam marka mowduucaygan ku aadan inaan ka hadlo haweenka waxaan ku soo qaadanayaa qayb kamid ah ay dhahaan dumarku waxaan raadsanaynaa xuquuq qaybtaas oo barnaamijyo badan ama buugaag badan ka qoray iminkana aan qaar kale ka soo wado aanan doonayay inaan kaga faa'iideysto barnaamijka u hiili haliyeyga han kale haweenku waxay leeyihiin martabadoodu way sareysaa iyagu iminka waxay doonayaan inay raadsadaan xuquuq laakiin Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu siiyay xaq waxa la siiyay xaq iyagoo markii islaamku soo baxay islaamka ka hor haweenku waxay ahaan jireen wax la liido hadda haweenkii waxay leeyihiin waan soo baxaynaa waxaan doonaynaa inaan xaq raadsano marka waxaan u sheegayaa haweenka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan horta guud ahaanba haweenka islaamka gaar ahaan haweenka Soomaaliyeed inay leeyihiin xaq hay'adan ay u daba fadhiisanayaan ay leeyihiin waxaan doonaynaa xaq ama aan raadsanaynaa inaanay waxba ka jirin waayo waxa lagu guur waxa doonaysaa raadsanaysaa maalinta hooyada adduunka jirta hooyadu maalin kaliya ma laha maalin walba waad leedahay waxba kugu filan markuu ilmahaaga yar kaliya kugu dhaho maamo intaas kaliya ku ilaawi kartaa inaan xaq lahayn teeda kale waxaan doonayaa inaan fariin yar gaarsiiyo hay'adaha qof walba waxa wada nin oo loo daba fadhiisanaya iyagii markay ku soo galiyaan marka hore iyaga ku soo galinaya raggi waxay oranayaan haweenkayga xuquuq baa ka maqan oo keena dumarkii markay hadhow siyaasadii kula tartamaan ama ay kula tartamaan mansabyadii waxay oranayaan haweenkayga baa soo dabad baxay haweenku guryahooda ku noqdaan haweenka de ragga ka mas'uula raggii mas'uul ha ka noqdaan oo dib ha u celiyaan marka iyagu dib u noqdaan markaas unbay haweenku dib u noqon karaan ay raggu mas'uuliyadooda qaadaan laakiin haddaad tiraahdid marna hay'adii baan ku soo gelinayaa mashruuc lacag kaga saxiixatid hadhow inaad tiraahdid haweenkayga way dabad baxeen labadaas isuka ay qaban mayso waxaan ku soo gabagabeynayaa hadeer iyo hadhow markasta iyo meel kasta u hiili haliyeyga hanka